madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre oo madaxweynaha wadanka Masaarida Sayid Maxamed Xusni Mubaarak guddoonsiinaya bilad sharaftaasi lagu maamuusayo madaxweynaha wadanka Masaarida iyadoo aynu ognahay cilaaqaadka ka dhaxeeya labadeena dal ee Masar iyo Soomaaliya oo qarniyaal soo jiray kadib madaxweynaha wadanka Masaarida Maxamed Xusni Mubaarak waxa uu isaguna halkaasi uu ka jeediyay khudbad taariikhi ah wuxuuna ku bilaabay فخامة الأخ الرئيس محمد سياد بري أيها الإخوة الأعزاء أرجو أن تسمحوا لي أن أعبر أولا عن خالص التقدير والامتنان بالحفاوة البالغة التي صادفناها منذ وصولنا إلى بلادكم الشقيقة التي تربطنا بها أوثق الروابط التاريخية والحضارية والروحية وتجمعنا معها وحدة المصلحة والمصير. لقد أدرك آباؤنا الأولون منذ آلاف السنين تلك الرابطة الأزلية القائمة بين الشعبين فمدوا جسور الاتصال والتعاون وتبادلوا السلع والمنتجات عبر البحر الأحمر وأرسوا قواعد ثابتة للتفاعل بين الأفراد وتشابك المصالح وعلى مر القرون ازدادت تلك القواعد رسوخا وصلابة وخاصة عندما ازدانت بالبعد الإسلامي الذي ألف بين القلوب ووحد أبناء الأمة في مشارق الأرض ومغاربها تحت لواء واحد لواء الحق والعدل والسلام. وقد خاض الشعبان كفاحا مشتركا ضد الاستعمار والسيطرة الأجنبية وسقط الشهداء المصريون إلى جانب أشقائهم الصوماليين في معركة العزة والكرامة والحرية فما لنت لنا قناة ولا فترت لنا عزيمة بل زادتنا الأيام والمحن إصرارا على الخلاص والتحرير وتمسكا بالمبدأ والعقيدة. madaxweynaha wadanka Masaarida Sayid Maxamed Xusni Mubaarak iyo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre ka dambow markii ay isdaafsadeen khudbadaha qiimaha iyo qaayaha leh ee guud ahaanba lagaga warramay cilaaqaadka labada dal ayaa dabadeetana isla habeenimadaasi waxa ay yimaadeen labada madaxweyne oo ay ka qayb galeen barnaamij loogu talagalay soo dhaweynta madaxweyne Xusni Mubaarak oo lagu qabtay golaha murtida iyo madadaalada National Theatre-ka ee magaalada Muqdisho wuxuu ahaa barnaamij aad u xiiso leh oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya waxaana uu ka warramayay barnaamijkaasi xiriirka facaada weyn ee qarniyaasha soo taxnaa ee ka dhaxeeya labada dal iyo labada shacbi ee walaalaha ah Soomaaliya iyo Masar laga soo bilaabo waqtigii Xadshabsuud oo loo yaqaanay dalkan Soomaaliyana bilaadul bunti ilaa iyo maantada tan oo cilaaqaadkeedu ay marayaan caataas madaxweyne Xusni Mubaarak oo salaamaya dadkii ka soo qayb galay xafladaasi halkaasina waxa khudbad soo dhaweena markiiba ka jeediyay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta ummadda gaashaanla sare Maxamed Cumar Jees oo khudbadaasi ku soo dhaweynayay madaxda ka qayb gashay xafladaasi madaxweynaha wadanka Masaarida Sayid Maxamed Xusni Mubaarak iyo madaxweynaha wadanka Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre madaxda kale waxaana kamid ahaa hadaladiisii المرافق له سيد الرئيس محمد سياد بري السادة
أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الصومالي، السادة الوزراء، السادة سفراء الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي يا فخامة الرئيس أن أحييكم باسم الإعلاميين والفنيين الصوماليين الذين يحتفلون الليلة بزيارتكم العظيمة لجمهورية الصومال الديمقراطية. ولا شك يا سيادة الرئيس أن زيارتكم هذه لبلادنا لها أبعاد تاريخية متعددة الجوانب عربيا وإفريقيا وإسلاميا. وليس غريبا أيها البطل العربي الإفريقي أن تقف مصر جانب الصومال سياسيا واقتصاديا وثقافيا. إننا نذكر بكل احتساس ما قاله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إذا لم يبقى في مصر إلا رغيف واحد فإننا سنتقسم هذا الرغيف مع الشعب الصومالي. kadib khudbadaasi uu jeediyey jaale maxamed cumar jees wasiirka warfaafintu waxaa halkaasi ka bilowday barnaamijkii halkaasi ay fanaaniinta Soomaaliyeed ay ugu tala galeen soo dhaweynta madaxweyne xusni mubaarak waxaana uu ku bilaabmay sida tan. أنت خير وبشارة جئتنا أهلا وسهلا أنت خير وبشارة مرحبا يا فخر مصر مرحبا رمز الحضارة مرحبا يا فخر مصر مرحبا رمز الحضارة أنت في قلبي يا نور وكلامي أنت في قلبي يا نور وكلامي لم يجد منكم زيارة منذ حجب صوت عشنا لم يجد منكم زيارة أرض بنت يا مبارك إنها أرض الطهارة أرض بنت يا مبارك إنها
مينا عرض خوف عرض غفرة والمغارة عرض مينا عرض خوف عرض غفرة والمغارة نحن منكم وإليكم نحن رهن للإشارة نحن منكم وإليكم نحن رهن للإشارة مرحبا يا فخر الاسم مرحبا رمز الحضارة مرحبا يا فخر الاسم مرحبا رمز الحضارة أنت في قلبي نور وكذا أنت في قلبي نور وكذا نحن عرب أوفياء سعد في العرب عمارة نحن عرب أوفياء سعد في العرب عمارة وكذا الإسلام فينا كم يهم يوما كدارا وكذا الإسلام فينا كم يهم يوما كدارا مرحبا يا فخر الاسم مرحبا رمز الحضارة مرحبا يا فخر الاسم مرحبا رمز الحضارة أنت في قلبي نور وكذا أنت في قلبي نور وكذا إن مسنه الروح لمن العرب شرارة إن مسنه الروح لمن العرب شرارة نحن في الصومال دوما مع مصر شداد نحن في الصومال دوما مع مصر شداد مرحبا يا فخر الاسم مرحبا رمز الحضارة مرحبا يا فخر الاسم مرحبا رمز الحضارة أنت في قلبي نور وكذا أنت في قلبي ألف شكر يا مبارك ألف شكر للزيارة ألف شكر يا مبارك ألف شكر للزيارة ألف شكر يا سياد إذ أتى رمز الحضارة ألف شكر يا سياد إذ أتى رمز الحضارة مرحبا يا فخر الاسم barnaamijka ay fanaaniinta Soomaaliyeed habeenkaasi ay golaha murtida iyo madadaalada ay ku soo bandhigeen waxa uu barnaamij taariikh ah oo ay ku soo dhaweynayeen madaxweynaha wadanka Masaarida Sayid Maxamed Xusni Mubaarak iyadoo ay kamid ahaayeen heestaasi halkaasi ay ka qaadayeen alf shukri ya mubaarak alf shukrin li ziyara alf shukrin ya siyaad id ata ramzul hadara